halka wararkaasi aad ka daawanaysaan waa telefishinka RTN warku si toos ah kaga imaanayo studio telefishinka ee magaalada Nairobi markana magaalada Muqdisho waxaa maanta gaaray wariye Maxamed Aweys Muuday oo boqorka bartamaha lagu garan og yahay 4 sano ayuu ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya wariyaasha ayuu kula hadlay garoonka Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho isagoo uga mahad celiyay mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya kaalintii ay ka qaateen soo deyntiisa faafahinta warkaasi magaalada Muqdisho waxaa nooga soo dirtay wariye halkaasi nooga soo waranta Nimco Maxamed Bashiir kadib 4 sano oo ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya wariye Maxamed Aweys Muuday boqorka bartamaha waxa uu maanta soo gaaray magaalada Muqdisho oo ay 8 sano ka hor ugu dambeysay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dhexe iyo qaar ka mid ah suxufiyiinta Muqdisho ayaa kaga hortagay gegida diyaaradaha ee Aadan Cadde halkaas oo uu kala kulmay soo dhaweyn saaxiibtinimo boqorka bartamaha oo kula hadlay warbaahinta qaybta nasiinada ee garoonka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay dib u helidda xorriyadiisa shakhsiyadeed madaxda sare ee dawladda federaalka iyo safaaradda Soomaalida ee Itoobiya ayuu uga mahad celiyay kaalinta ay ka qaateen sii deysmadiisa arrintan waxay daba taagneyd dadaal badan runtii aad u dhib badan oo loo galay maxaabiista Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan ku xidhan ee adduunka oo Itoobiya ka mid tahay waxaad loo socotaan hadda laga joogo waxaa u suurta gashay dawladda Soomaaliya inay dib uga soo noqoto 114 ku xidhnaa jeelasha Itoobiya gaar ahaan Jigjiga inuu sahlay muwaadin Soomaaliyeed oo go'aan laga gaaray oo dad badan ay runtii qoys ka joogeen in maanta isagoo xor u dalkiisa ku soo laabtay inuu dareensan yahay macnaha ay qarannimadu leedahay faa'iidada ay qarannimadu leedahay rajo iyo maaragtay nolol uu ka qoostay eelkiisu ay ka qoosteen dad badan oo naga mid ah ay ka qoosteen in maanta maaragtay madaxda qaranku ay soo nooleysay Allah subhanahu wa ta'ala mahadiisa kadib maqashoone ciidii dhulkaagii aad ku caana maashida calal fara ku soo baa ku soo noqday calanka ciidda aan ka bilaabaya mahad gaar ah ayaga iska leh ilaahay mahad buu isii weeyay waxaan sidoo kale into iloobi karin qarni waliba sabinkii qisati mid bas waxay waxaan ilaabi karin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo presidenta Soomaaliya oo waxa weeye maanta ninka diiradda saaran maanta jawiga Soomaaliya wax ka bedelay mahad gaar ah waxaan u celinayaa dadaalkii ay galeen asaga iyo ra'iisul wasaaraha dawaas ka taqaanayo xataa cali qayna malkana leeyahay ereyga dambaan qaadanayna qeyr baan qaadanayna waxaan u hambaliyaynayaa bahda saxaafadda Soomaaliya baalashan ku soo duulay waa bahda saxaafadda Bangkok iyo Berlin ilaa Britain Ingiriiska waxa joogo saxaafadda ee Muqdisho isugu soo biyo wararkooda ayuu ka cabanaya dhibaatooyinkii iyo xaqdaradii meesha ka dhacay wariye Maxamed Aweys Muuday oo kamid ahaa tiro saxafiyiin oo cabsi soo wajahday awgeed dalka uga hayaantay sanadihii la soo dhaafay ayay dawladda Itoobiya ku xukuntay 25 sano oo xabsi ah kadib markii ciidamada amniga ee dalkaasi ay ku eedeeyeen inuu ku lug lahaa fal dambiye dalkaasi ka dhacay Nimco Maxamed Bashiir RTN magaalada Muqdisho.